isagoo ku celcelinaya qowlka ilaahay waqul jaaa alxaqu wazahaqa albaatilu ina albaatila kaana zahuuqa oo macnaheedu yahay oo dheh waxaa yimid xaqii islaamka tawxiidka oo wuxuu baaba u sugnaaday baatilka shaydaanka iyo shirkiga iyo wax la mida hubaashii baadilku waa wax baaba'a oo tirtirma suuradda al-israa aayadda 81 muslimiinta qaarkoodna waxay lahaayeen oo ku celcelinayeen yaa cuzaa kufraanaka laa gufraanak inii ra'aytu allaha qad ahaanak oo macnaheedu yahay cuzay wallee kaa aamin baxnay oo kuma weydiisano istikfaar waxaan aragnay inuu ilaahay ku ihaaneeyey xajkana waxaa ku jira macnooyin waaweyn oo ka mid ah macaanida tawxiidka sida ka reebidda mushrikiinta soo gelitaanka masjidka xaramka wuxuu yidhi allah kor ahaaye yaa ayuha aladiina aamanuu inama almushrikuuna najs falaa yaqrabu almasjid alxaraama bacda caamihim hada suuradda atooba aayadda 28 oo macnaheedu yahay kuwa rumeeyayow xaqiiq mushrikiintu waa nijaas waa qurun fadara ah ayaysan u soo dhowaan almasjid alxaraam sanadkan kadib suuradda tooba aayadda 28 wuxuuna diray nebiga sala allahu calayhi wasalam sanadkii 9aad ee hijrada rag ogeysiiya dadka oo kula tanaagooda codka inaan qofna loo ogolaaneyn inuu ku dawaafo beytka kacbada isagoo qaawan iyo inaan loo ogolaaneyn inuu soo xajiyo sanadkaa kadib qof mushrik ah waxaa wariyey albukhaari iyo muslim waxaadna ka arkaysaa tawxiidka xagga xajka codka lagu tanaagoodo talbiyada iyo dhawaaqa lagu caddeeyo inuusan ilaahay lahayn wax shariik ah labayk allaahuma labayk labayka laa shariika laka labayk ina alxamda wاlnicmata laka wاlmulku laa shariika lak allow waan ku ajiibay oo kuu okobanahay ma lihid shariik iyo cid aan kula wadaajinayo cibaadada amaan mahad ideelkeed adigaa iska leh adigaa le nicmadda iyo mulkiga ma jira cid aan kula wadaajinaya cibaadada talbiyada tawxiidka ah buuna rasuulkii allah sala allahu calayhi wasalam ugu dhammeeyey talbiyadii ahlu shirkiga ee ku celcelinayeen markii ay xajinayeen waa hore iyagoo leh labayka laa shariika laka ilaa shariikan huwa laka tamlukuhu wamaa malak allow waan ku ajiibnay oo kuu okobannahay ma jira cid aan kula wadaajinayna cibaadada mid ma ahee aad adigu leedahay isaga iyo waxa uu leeyahayba allah ka hufane waxa ay leeyihiin oo ka sarreeya sarrayn weyn waxaa tawxiidka laga qaadanayaa wakhtiga xajka oo uu ku jiraa 2 ragcadood ee dawaafka marka uu ku akhrinayo muslimka ragcadda hore suuradda qul yaa ayuha alkaafiruun oo macnaheedu yahay dheh gaaloy anigu ma caabudayo waxa aad caabudaysaan oo idinku ma caabudaysaan waxa aan anigu caabudayo